soo gaaro videogan share garee like subscribe comment inta waa adiga dhankaaga walaalkay عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخيارتك وحرين جنال كعمر كي يوتيوب هيو ونكسن وولالكين عمر كي إذن لي فيديو سو قرنا سبسكرايب كتاوتو قنبليل كتاوتو ساد أنو خطو داودها أغوهوري أنا كان وانكو تحقلنا يا سيدا تحقلي داودها هدي وحرنو كينتو هدو إلهي كراني نخضو بل إن شاء الله عاو وحن جعلنا إنا نكحضو لابو بيلو الصوماليات وكل هورتو ولال الصوماليات وداد الصوماليات وداد مانتا محالة دها يوتيوبرا أو channel كحرن أو مانتا dad badanaa fiirsadaan oo maxaa la dhahaa channelkooda intaasoo qof ku xiran horta waxa mar walba fiicana waxay tahay shayga marka dadka adiga ku daawanaad u soo gelinaysa ha ahaade shay dadka waqti xaadirka ku faa'iidayaan ama wax dadka kaga qosolsiin karo kale laakiin haddaad soo geliso maxaa la dhahaa waxyaabo qaaraan markaas ma aragtid diinta dhankeeda u gudubto aad lagu fiican yahay bal insha Allah mawduucna kaas ka hadli doona qaasatan waxaan ka hadlayaa waxay tahay channelka isma dhaanta loo yaqaano sida big bro iyo wiilka kale oo garabkiisa fadhiyo kulli ka sheekeen caaw maxaa la lahaa mas'uuliyad saakay ilaa iyo galabtii ama saakay ilaa iswaxdii ka sheekeeyeen wadaad oo maanta maxaa la alxamdulillah kumanaan kun dad fiirsato maanta wixii wanaagsan uu sheegay wixii xunna ka reebayo haddii aan jeclahay inaan ka hadlo kulli horta reaction waa la wada bixiyaa ceeb ma ahan youtuber ta reaction waa bixi kartaa ceeb ma ahan laakiin si markaad youtuber tahay waxa fiicana waxay tahay wax khayr qabsiida ama wax dadka ka qosolisi ama wax dadka oo farxad geliyso laakiinse arin diin wiligaha ku xadgudbi qaastan budbro adan kula hadlaya kulay ninka horta dhankaaga fadhiyo ma aqaan qaabka uu hadlayo wuxuu taageersan yahay waan dareensanay gabdhaha is cadeeyo taageersan yahay horta waxaan idin weydiinaa mid ugu horeysay tahay halkee diin ka soo gashaa is cadeenta midaas koow su'aal idinku ah markaad dhahaysaan macnaha maxaa la lahaa gabar is cadeysa ayuu sheekhan leeyahay iso dohdii la furay kaalinta ay ka soo gashay inay haweenka is cadeeyaan bal koow taas ii sheega aayada daliilinaysa inay haween is cadeyn karto laba waxaan ka hadlayaa waxay tahay waxaad dhahday wax yar oo makeup ah horta makeup-ka ma xalaal ba maswa xaaraan markaad qofka bini aadamka mase qofka muslimka wax ka sheegaysid ha ahaado wax markaa dadka dhan u wada muuqan karo laakiinse adigoona diin aqoon ama cilmi aqoon u lehen qof bini aadam waxba ha ka sheegan qofkan wuu kaaga cilmi rooyaa diinta dhankeeda wuuna kaaga badiyaa dhan walboona kaaga badiya maanta qof gaal ayuu soo hanuunin karaa ayuu laba ero u sheego asiga dartiis ma ardo diin islaamka soo gal kara laakiin adiga qof aad wax ka bedeli kartid ma laha sababtoo ah cilmigaad ba aqoon u lahayn haddaad cilmiga aqoon u leedahay waxa muhiim ah tahay inaad ku dayato qofka kale walaalka oo diinta sheegay mideed kale waxa muhiim ah waxay tahay inaad ku taageerto qofka markuu maanta waaninaya haween kulay masaajidka oo sheekha waqti xaadirka ka jeedinaya diinta haween badan daawana dhageysanayo rag badan dhageysanayo qof walbana maanta xaaskiisa wuxuu jecel yahay waxay tahay waxaysan naar ku galaysa ama walaashiisa ama waalidkiisa ma jecel inuu maanta ku guwaabiyo adiga si haddaad maanta jeceshaa mas xaaska mas walaashaada inay is makeup gareyso masna mar is cadeyso kulay la soco cadaab ayaa dambeeyo adduunka waxa lagu joogo ma ahan wax nin lagu soo jiito waxa muhiim ah waxay tahay wuxuu ilaahay kugu jeclaanayo hadduu ilaahay midab madow ku siiyay ha ku dayanin mase ha ku dayanin midka midabka cad la siiyey ka midabka cadka la siiyey wuxuu mar walba jecel yahay waxay tahay midabka maanta aniga ilaahay la siiyay alxamdulillah waan ku mahadinaynaa midabka madow aadaan u jecelnahay walaalkay khaali horta adigan kuna hadla wiilkaan shaatiga madow wato hadhihin maxaa la dhahaa shiikha waxaa la dhahaa furiinko taageersan yahay furiinka cid taageersan ma laha cid maanta jecel ma laha kacba dhisan inuu dumiyo markaad ka hadlaysa waxa muhiim ah waxay tahay inaad u soo jeediso qofka bini aadamka waxay markaas meel uu ku khaldami karo mise diinta uu banaysan karo mise waxyaabo xunxun oo banaysan karo kaleeto sidii maxaa la lahaa sheekh la dhigi jira hadda koor sheekhna ma ahayn cali raay dhigi jiro dhaa heesa waa xalaal kaasoo kale waa ka hadli kartaa wuxuu ka hadlay waa macquul laakiin se ruux ka hadlay gabdhaha is cadeentooda misna dhahay inay xumaan tahay misna xaaraan ay tahay ha ku taageerin gabar walaashaada oo maanta channelkaaga misna ha is dhihin gabdhaha macnaha ku taageeraan wuxuu big bro taageersan yahay mas channelka ismadhaanta waxay taageersan gabdhaha is cadeeyo wallahi billahi cadaabad gabdhaha u hogaaminaysa runta waxa fiicana waxay tahay gabadha walaashaada ha ku guwaabin shay markaas naarta uu fogeenayo qofkii midab madow haasto alxamdulillah qofkii midab cad haastan waa alxamdulillah kulli kulligooda gacan ilaahay baa soo wada abuurtay kulligoodan ilaahay baa ugu talagalay midab walba qof walba midabku qurxan ilaahay baa nagu aniga waxaan aqoon leena ma lahan maanta caafimaadka aad ku hadlayso ma ahan maxaa la dhahaa mid adiga aad samaysatay waa mid khaaliqa ku siiyey khaaliqan wuxuu ku siiyey haddaba ha ku raadinin shacab yaro maanta adiga channelkaaga ku xiran inay kugu taageeraan mase ay kugu sacbiyaan wallahi cadaabku muteysanayo sababtoo ah qofkii markaas adiga aad ku taageerto waxaa laga yaabaa inuu asigana dhaho big bro waa sheegaya ama channelka ismadhaanta laga sheegayay gabdhaha inay is cadeeyaan waa xur wallahi bilaa dhibaato badan ay leedahay runta waxaa fiicana waxay tahay markaad adiga ka hadlayso mawduuca ku saabsan mase arrimo bulshada usoo gudbinaysid haddaad rabto sheekha adoo ka hadlaya adigoo waano ama wax wanaagsan wax u sheegay ka hadal laakiin saadin sheekha wuxuu yahay macnaa nin furiinka taageersan mas nin hogaaminaya inay dad badan isfuraan
isfuridda xad bay leedahay ilaahay baana adduunka ugu talagalay in la kala tago ceeb ma ahan in la isguursadana ceeb ma ahan laakiinse wax walban waqtiga ku dhacaan walaalkay khaali waxaan ku dhahayaa waxay tahay ha ku degdegni shayaan cilmi u lahayn ilaan markaad cilmi leedahay diinta ka hadli kartaa masna aad faragelin kartaa adigoona diinta aqoon u lahayn waxba cilmi ha faragashanin qofka hadduu qaldan yahay ama hadduu saxan yahay culumada Soomaaliyeed adduunka ilaahay woo dhoobay qaastan Nairobi nolol wada joogaan weydi macnaha erigaas ma jira ha iyo maya qofka hebel sheegaya waxaas macnaha ka hadlaya marunba maswaabeen laakiin se ha ku hadlay shay marka aqoonaad u leeyahay mas cilmigeeda aadan garanaynin haweenkan waa haween masaakiin oo wixii loo hogaansamo way hogaansamaan wixii laga reebana kulliye waxa waa ilaahay inuu ka reebo maahan kama reebtoonaadaan marka walaalkay khali waxaan ku dhahay waxay tahay ha isku dayin shay aadan cilmi marnaba u lahayn shaygaad ka hadlaysa ha ahaado shay aad cilmi u leedahay aad maanta ka hadli karto mise aad jawaab ka dhiibi karto wax maanta aad daliili karta mise hal aad tafsiiri karta ma haysan runta markii laga hadlo walaalkay waxaan ku dhahayaa yeesan ku khaldin dadka ku xiran channelkaaga misna ha isdhihin channelkaaga haddii dumar u badan dumarka waxay jecel yihiin u taageer dumarka waxay jecel yihiin hadduu khayr ku jiro ku taageer kubii kugu nacaan ilaahay baa kugu jeclaanaya adduunka intaad ku nooshaa waa waqti kooban waxaad badan ayaa waxay tahay inta adiga khabriga aad ku jiraysa mise haddii cadaabta misna haddii jannada aad ku jiraysaa aad u tiro badan kulley kuuma rajeynaya inuu ilaahay ku cadaab waxaa ilaahay kaaga baryaa inuu jannada ilaahay maaragtay kaa waraabiyo inta aniga muslimana inta Soomaali mise inta muslim daafac caalamku nool حتى قال عمر الجنين إنه عذاب قال صوبته أو بني آدم أنا جو كلنتا وحن إلهي كبرنا إنه إلهي سوها نونيو وما أردت عذاب كان إلهي ككوريو رنت نفس بني آدم ما تعذاب لو من يسنكروا أديك ما تقبلها ولا لهنا واحد كل رجعات كنت جالسة واحد تايم إني عذاب قلان والله يرتو وارن آدي أدو خابدر ميت كاد قرب كاغو فريوشاتي مدو كل أسيغا وحاو ملينا دك استاتابتو اسمري إني تاو ملينا يا سببتو qofka markuu shay taageeraad aragto waa shay asigoo lug ku leeyahay ma taageera ilaa shay maarta asigoo lug ku lahayn kan garabkaaga kulli waxaan isleeyahay waa nin asiga naftirkiisa inuu ismariyo jecel masah dooro waa ismariya kulli isku mahaleyn karo ragga qaar ah hada 100% sida habeenka camal wax ismariyo run ahaantii aniga ma jeclaan erigaas inaan ku dhaw laakiin waxa mar walba muhiim ah waxay tahay markaad wax walaalkaaga wax u sheegaysid u sheeg wax khayr badan ha u sheegin waxyaabo maarta dhibaato u keeni karo sababtoo ah wax walba waxay yihiin ayaa wixii taa waqti kooban gabadhii maanta lagu furan maxaa la dhahaa ayadoo daabo masninkeed wuxuusan ku aqoonin kulay ninkaas dambi kuma lahan runta markii laga hadlo sababtoo ah ninkan shalay markuu ku guursanaa hadoo adigoo dhuxul eg ama adigoo maartay sida qaxwaa eg haduu ku soo guursan mas adigoo carabtu ego kaleeto waa midoo kugu garanayay marnaba ha ku khaldan ilaa wax walba waqti leeyahay midda hadda maanta daawada ismarsadii saacado ama maalimo aad joogto waa hadda daawada dhaqaale u hayso laga yaab inay midabkaaga isbedelaan oo maartay madowgaaga aad leeyahay shalay ilaahay ku si mid ka fool xun inuu ku soo fuulo walaalkay waxaan ku dhihi lahaa ha ku guwaabin gabdhaha walaalaheena oo Soomaaliyeed ha ku guwaabin hana ku taageerin maxaa la dhahaa in ay dhibaato mise xumaan kaga imaato xaq ilaahay sababtoo ah waxa way maqaarkaaga maanta kiimika amaraysa wallahi dhibaato badan ay leedahay dad badan kansar ka qaaday dad badan oo waqti xaadirka ma aragtay inay uur qaadeen oo family noqday uur qaadeen si uu marsanay markii operation hatta halis ku galay waxaan hadda aniga marsanayno masiga Soomaalida gabdhaheedu u badan tahay hatta gaaladii diidan waad aragtaa dekeyn daraad mardaxas waa laga joojiyay daawooyinkaas in laga isticmaal ayagoo gaali diidan yihiin macdala adigoo muslim maqaarkaaga ilaahay ku sii hadii qof gaal kugu yaabo kabar misna oo isdhaho qofkan asigoo saa u yaalo macnaha oosan ku kalsooneen nin maanta ka madow misna awoorista ilaahay ay kala dugan tahay asigoo misna ka falxun laga yaab ayaa haddana wuxuu ku qanacsan yahay qaabku ilaahu awoor asigoo gaal ah macdala adigoo muslim diinta ku soo korto diintana akhlaaqdeeda iyo anshaxeeda intaba aad taqaanid oo waalidkaaga ab oo soo barteen misna kugu soo dhaqeen adiga lagu soo koriyay haddana ha ku taageer waxyaabo faasho xun aad ay ceeb u tahay aadina qaab daro u tahay waa xishmad daro runtii markaad ka hadasho shay aad ma aragto u qaab daran inaad adiga aad ka bixiso jawaab ninka waa nin culumaa mideeda kale waxaad dhahdeen macnaha shiiqa waa shiiq ciyaalka xaafadda ah horta wax ciyaalka xaafadda la haba yaraatee ma jiraan qofkii ka cilmi badan wuu ka aqoon badan yahay wanaagna uu ku sheegi karaa xumaan uu ka reebi karaa wax ciyaalka xaafadda la dhahay ma jiro cilmigana qof bini aadan ma lahan cilmiga waa mid walba la barto ilaahayna qofku ilaahay maad u hadiyada un baa barto shiiqan horta aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa maadaama uu ka hadlay shayga dhabta laga hadlo loo baahan yahay sababtoo Soomaalida 100% waxay iska qariyaan waxyaabaha foosho xun ma jecla inay banaanka iska soo dhigaan laakiin wallahi billahi talla waan ku taageersanahay sababtoo ugu taageersan maanta hadii walaasheeda marsato masaxaaskeyga ay marsato hooyadey ay marsato wallahi lama jecel been ku ma sheegay sababtoo waxa waalidka walaalaha masaxaaska loola jeclaada ayaa waxay tahay waxyaabo adiga maartay quruxdooda ama heebadooda soo jeed maanta hadaa anaga dad madmadow aan ka soo jeednaa anagoo dad madmadow ka soo jeedna hadaa isku bedelo dad cad hadaa ilmaha dhaleen dad madow ayeen halkee ka imaadeen waa su'aal aad waa arin aad u qaab daran sababtoo adigana waa madowda ama adiga waa caddahay cunugaagan waa madow yahay okay wixii cad waxa lagu yaqaan wax cad inay dhalaan laakiin waa caddahay cunugaa waa cunug madow ninkiin waa cad naagtin waa cadda cunuga dhalan waa cunug madow waa qaab daro ilaa adigu ma dhalan waa wax adiga iska yeelis
allora cunug waxaad samaysaa intii umash lagu dirna daawuhu mariya kolle hal isla wada caddaado walaalkii mar walba waxaan ku leeyahay bilfadlan waxaan kaa codsanayaa walaalaha Soomaaliyeed marnaba ku hogaaminay shayga fool xun shay walba xun walaalka ugeysii inuu xun yahay shayga sanna u sheeg inuu san yahay بالفضل واحد يذكر عصنا الصوماليين ميلو بيدافع عالم كجوكتين فيديو كان هنا إيشير جريسان والله وحن آدي وجعلها واحدة والله ميلو بفيديو وانكرت هنا إيشير جريسان سببته واحد تهي مجعل أنا ما أرت وحيابه ولا لا سيد قلت كلو جامينها مجعل وحيابه وما أرت خف بني آدم كلو قلتها وحول وحى مهم لا والسوء أدي إلهي وكوم أما مدوا مع الضوء إنها تكون عسناته إلهي بقى أدي خروح هذا كورنا ما يصير هاسكو دايما كنا يسكب الشو أخيات بالفضل حيكو عسنا فيديو هدوك سوق الناس شير جريسان I like the subscribe comment أنت بيقول جريسان ولا لا أنكو حد الجنة كعمر كيوتيوب بالفضل حيكو عسنا يا إن subscribe كي تابتان أجنبليل كان كدرت نقطة دعوة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.